ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland kamid ahaayeen waxaan fariin halkan uga dirayaa ciidamadii ka goostay Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka baxay in ay noqdeen niman ka soo jeestay dawladoodii dawladumis noqdeen laguna maxkamadaynayo wixii maanta ka dambeeyay kiiskoodii amba garnaqsigoodii ka bilaabmi doono insha Allah aan u gudbin doono maxkamadda darajada koowaad ee gobolada Bari waxweeyaan waad aragtay tuu birina halkan galo ayo hadana maalinta damana qiimanaya maanta uu yimaado ayaa wixii xukun halka ka soo baxa nooc doona oo haade ayaa lagu xukumi doona laguna dhaqmi doona duleelada وزير ما جرت أمر كحكومة هنا بحسان إذا هن وقوة إن لو يردوا دقمة برن سيدا يكون ديا برن محل لو يردوا برن سومالنا بكمتها إن أمي كده لو سجن وياه وعيدهم كمان بيوتشوا هكذا سيدا بيوتشوا وقوة السيد كلها إنه تقول ما يقولك كستو سومالنا أي تهاي حد كستو يلو كستو لا سومالنا وتجي عيدهم كجمهورية سومالنا أم بقى عيدهم قرن هذا amba ahaado ciidanka asluubta ahaado amba ciidanka badda ahaado amba ciidanka booliska ahaado dhamaan ciidamada kala duwan Soomaaliland meel ka xaraama oo Soomaaliland ma jirto meel ay Soomaaliland leedahay meel kuma xad gudbeyno meel kasto Soomaaliland meel way ka tii karaan ilaa hadda imsa sarkaal iyo askar ayay maxkamadayn doontaan oo u goostay Puntland intii alla intii hawsha u dhaqaaqay iyo wixii soo dhacaba dhibaatadaas sameeyaba markasta wax dambe sida u dhici doono iska soo gali doona ma jirto mid walba mid maxkamadda darajada koowaad oo xukumayna waa nin qaradumisa waa nimankan darajada madaxweyne ku fadhiya ninka gaashaan la dhaxaa waxa macnaheedu waxa weeyaan 5 jeer ba ayu 5 jeer u digreeto madaxweynaha ciyaar maaha garbiisa waxa saarnaa qiimihii iyo karamkii Soomaaliland laakiin uu dumiyay waxana lagu la xisaabtamaya wuxuu sharcigu ka qabo ma la oran karaa dayacad dhanka xukuumadda ka timid ay ciidamadaasi u goosteen ma lama oran karo waxa xuquuqiyadka ciidamada kale leeyihiin bilahay wasiirka hadalkiisa si wata ayaa sidoo kale faahfaahin hor ka bixiyay maxaabiistii dhawaan madaxweynaha Soomaaliland uu sii daayay laga qabtay Puntland iyo cidda ka shaqeysay sideentooda horta waxa weeyaan wixii ciidan kasto waxa weeyaan la isweydaarsanayaan bal cafinayo mar walba dagaalka wax walba uu ka iman karaa waxay hayaan waa laga rabaa anagu hadaan ay Soomaaliland hay'adaha international-ka amba CRC hadii aan lahayd waxaan ogolnahay inaan u qabsano waxa ay wadaan nimanka Soomaaliya ka soo jeeda inaan waxa weeyaan dhibaatadooda naga daayaan oo dhulkayga aan lagu mar walba aan xadidnaa rabnaa cafiska anagu waxaan ugu tala galnay si wada noolaashiga caadiga u socdo oo nolosha caadiga u socoto inaan caalamka tusnayna anagu dhibaato wadin iyagana waa laga rabaa wax alla wixii ay hayaan ay keenaan loo sheegay tira ayana ka xidhan lahayd maxaabiis ma tiro anagu ma jirto tira xadidan oo ku sheegi kara ma jirto ayada noo dhaxaysa CRC ayaa international community ayaa waawada blog wasiirku waxa uu sidoo kale ka hadlay xaaladii degdeg ah ee lagu soo rogay gobolka Sanaag isagoo meesha ka saaray in caqabad ku noqon karto shacbiga halka ku dhaqan gurmadkii la gaarsiin lahaa maxay iska difaacaysan ka xukuumadda horta wax walba waxa ka horeeya amniga markuu qofku amniga helo ayuu tukan karaa cibaadeysan karaa guursan karaa nolosha caadiga markaas uu sameyn karaa laakiin haddaan qofku amni iyo masaajidka aanu geli karin usleeyo aana lagu dili ودلوقتي lagu sameyn oo amniga aanu haysan hay'addu wax u tar kartaa maxay noqonaysaa gudoomiyaha wasiirka waraysi dheersiinay telefishinka Somali Cable ayaa ka hadlay adeegyada asaasiga arrimaha bulshada ee baahi weyn u qaban ciidanka militariga Somaliland ee qaybkeen waxbarashada iyo caafimaadka ilaa hadda waxyaabaha uga hirgalay miisaaniyada qaar waxa nagu jira inay iska daaweeyaan indhaha kale dhakhtarka manhal caafimaadka caadiga uu weey karaa dhakhtarkii weynaaye ciidanka ku yaalay xerada Birjaax ugu socdaa miisaaniyadu nagu jira oo inaga dhisanayna